بسم الله الرحمن الرحيم وهرني إلهي بقى مهدل رمضان مبارك waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa dhammaan kooxaha kala duwan ee ka qayb galaya koobkan aynu maanta halkan ka daafurayno koobka waxa soo qabanqaabiyay wasaaradda ciyaaraha ee degmada Laaskeel oo ah niman dhalinyaro aad u firfircoon aad baan ugu mahadnaqayaa nimanka dhalinyarta ee firfircoon koobka ay noo soo qabanqaabiyeen waxaan halkan sidoo kale aad uga mahadnaqayaa kooxaha kala duwan ee ka qayb qaadan doona inta koobku socdo maanta halkan waxaanu ku daafuraynaa in uu koobkii Ramadaantu inooga daafurmay magaalada Dacarburuq waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa dadka tacabka galiyay in koobkan inoo suurto galo oo ugu horeeyo xildhibaanka degmada Jaamac Maxamed Cabdi Jaamac Madoobe iyo gudoomiyaha degmada Mustafa Ibrahim Cismaan iyo mas'uuliyiinta kasto iyo xildhibaanada deegaanka ka soo jeeday cid kasto ka qayb qaadataba iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa nimanka dhalinyartana aad baan ugu mahadnaqayaa kooxaha degmada Laaskeel imanaya ee ka kala imanaya degmooyinka kala duwan ee gobolada Maroodi Jeex iyo Saaxilba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada insha Allah waxaan rajaynayaa inuu koobkaas inagu bilaami doono khayr insha Allah khayrna inagu dhamaan doono guul baan dhamaantiin idin wada rajaynayaa kubadduna waa barcad iyo barmadow badiyaabo waa bahdeen laakiin muhiimaddu waxayaan inaan ciyaar wanaagsan oo qaab wanaagsan leh aynu soo bandhigno kooxda badisana kooxda kale u hanayso dhamaanteynba insha Allah waan wada guuleysanaynaa waxaan rajaynayaa kooxda wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha degmada Laaskeel inay sida ugu hufan ee ugu cadaaladsan ay koobkan insha Allah u maamuli doonaan kooxahana waxaan leeyahay insha Allah wixii khalad dhacana in aan isku dul qaadano wixii wanaagana aynu isku dhiiri galino dulqaad badan la muujiyo sidoo koobku wanaagiisu nagu bil Ramadaan baynu ku jirnaa insha Allah waxaynu doonaynaa inoo gacmaysa wada haysana inuu koobkaas khayr inagu soo gabagabeysmo kooxaha degmooyinka kala ka imanaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmada Laaskeel wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh